Nigeria waa dal federaal ah oo dhaca galbeedka Afrika, wuxuuna ka kooban yahay 36 maamul goboleed iyo xarunta dhexe ee federaalka oo ah caasimadda Abuja. Abuja waxaa la aasaasay 80maadkii, waliba si casri ah oo ka duwan magaalooyinka kale si looga dhigo caasimadda Nigeria. Waa dal dimuqraadi ah, waxaana shardi ah qofka codeynaya waqtiga doorashada inuusan ka yaraan 18 sano. boqolkiiba 50 dadka dalkan waa muslimiin, halka ay Kirishtaanku yihiin boqolkiiba 40. Muslimiintu badankoodu waxay ku nool yihiin waqooyiga dalka, halka Kirishtaanku ku badan yihiin koonfurta. waxaana kala duwan waqtiyada la shaqeeyo ee dalkan. waqooyiga oo muslimiintu ku badan yihiinna lagama shaqeeyo maalinta Jimcaha, halka aan koonfurta laga shaqeyn Axadda. dadka la yiraahdo Nog waa kuwa ugu horeeyay ee Nigeria dega. guud ahaan dadka dalkana waxaa lagu qiyaasaa 200 oo milyan. waa dalka ugu dadka badan Afrika, asigoona sidoo kale ah dalka toddobaad ee ugu dadka badan caalamka. waxaana la qiyaasayaa 2050 in dadka dalkan noqon doonaan 400 oo milyan, maadaama uu yahay dalka ugu badan ee mataanuhu ku dhashaan. dhanka badka, waa dalka 14aad ee ugu dhulka weyn Afrika iyo dalka 32aad ee ugu dhulka weyn caalamka, wuxuuna ku fadhiyaa bad ka badan 900,000 kiiloomitir isku wareega. waxaa ku nool 250 qowmiyadood oo ugu caansan yihiin qowmiyadaha Hausa iyo Fulani, oo boqolkiiba 29 ka ah dadka dalkan. waxaana dalkan looga hadlaa 511 luuqadood, waana marka laga reebo 9 luuqadood oo dabar go'ay. luuqadda rasmiga ah ee dalkanna waa luuqadda Ingiriiska, waxaana xusid mudan in Nigeria looga hadlo boqolkiiba 7 guud ahaan luuqadaha dunida ka jira. waxayna dadka dalkan boqolkiiba 70 ka shaqaystaan beeraha, waana kuwo aad u tixgeliya dadka da'da ah. waxaana ka mid ah caadooyinkooda dumarka muslimiinta ah inaysan fiirin karin marka la guursanayo ragga jooga xafladda arooska. dalkan waa mid mug iyo miisaan culus ku leh qaaradda Madoobe ee Afrika, asigoona ah midka ugu qadiimsan galbeedka Afrika. waxayna dadka dalkan alaaba ku faanaan dhaqankooda. magaalada Lagos oo 1991 laga qaaday taajka caasimadnimo waa mid caan ku ah dhaqanka, sidoo kalena waxay muujisaa inay tahay weli caasimadda Nigeria, maadaama ay tahay magaalo korisa dhaqanka iyo fanka Afrika. wuxuuna leeyahay dalkan shirkad caan ah oo samaysa filimada laguna magacaabo Nollywood. shirkaddan waxaa la aasaasay 1960kii, waxayna soo caan baxday oo ay suuqa dunida soo gashay 1990kii wixii ka dambeeyay. waxayna maanta la loolantaa Hollywood iyo Bollywood. dalkan baaxadda weyn wuxuu alla ku manaystay ilo dabiici ah, asigoo ah dalka lixaad ee naftada ugu badan soo saara. wuxuuna dibadda maalintii u dhoofiyaa 2 milyan oo fuusto oo shidaalka ceeriinka ah. waxyaabaha uu soo saarana boqolkiiba 70 waa nafto. dalkan waxaa aad looga jecel yahay kubadda cagta, waxaana u dhasheen ciyaartoy heer caalami ah, asigoona ku guuleystay koobka Afrika 3 jeer. dalkan waxaa ka soo jeeda ninka ugu taajirsan Afrika ee lagu magacaabo Aliko Dangote, oo haysta lacag ka badan 12 bilyan oo dollar. Aliko ayaa mar ka sheegay meel fagaara ah inuu lacag badan bangiga kala soo baxay, kadibna uu la tagay gurigiisa si uu u daawado lacagtaas una xaqiiqsado inuu yahay qof taajir ah.